السلام عليكم أصحابتي ملك الدنيا كجو تنبل كسر وهذا عاوي عياره ورك قدام بيكم بدعتوا أنا سوق هذا دونايو ورك كانوا دين هينا وح عاو كم إذا رتي عاو ديالو واو ديالو بيدور ريال مانشستر يا أحمد ديالو عاو أمدو ونارك دونا عاو رتي ديالو عاو عياره عياره كلا جيران عاو شكوه إيه دونا ولو وحنا سوق هذا دونا ورك كسر عياره كبدا عقته بريمير ليج سنة كوال لقيا بيهاي sagaal kooxood ayaa u tartamaysa booska looga qayb galay Champions waxa ka qayb gashay kaliya afar kooxood sagaal koox baynu haynaa halkan sanadka warbaa jira Liverpool hadii hadda kor uu ka baxsaday Bruno kale bay helayaan akhbaarat kale ku soo qaada doona caaw ciyaaraha idin subscribe noo saar asxaabta channel ku cusub halku uu jir sheegtay inuu diri karo ilaa simad qana asxaabta kale ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaara runtii Manchester United waxa la leeyahay caawa ninkii Diallo ahaa ayay ciidamada laga yaabay Diallo waxa la ogaaday Ahmed Diallo ama Amadou Diallo waa ku gaaladan waa ku amuduniya mooyaane Ahmed Leewaaye ha Diallo Leewaaye ha wiil Afrika weeyaan cajab waa wiilka runtii Ahmed Diallo marka waxa la caaw waxa lagu soo daray liiska ciyaartoyga Manchester ciyaari West Ham ayaa lagu soo daray 18 jirka kan waxa laga yaabaa caaw in loo cimaamado oo gurigiisa ugu horeeyay uu ciyaar laga yaabaa tan markuu janno ku soo biirin bariyaha ilmaha yar yar naftu ka qaaday ninka kan Liverpool buu qabtay ugu fardiyay goolal hadda ciyaarna uu ciyaar waa fardiyay goolal marka ninkan caadi ma aha Diallo markii aad laga soo gaday ciyaartoyga lagu joogo waxay yiraahdeen warkan waa Messi Manchester Messi bay heshiis yiraahdeen Ahmed Caawar aragno ciyaarta haduu ciyaar waree Manchester oo FA xataa ciidamadu waa FA ku kala madax dagsada 3 sano koob ma qaadin 3 sano Manchester koob ma qaadin shayaadiin al-humraa oo 3 sano koob qaadin ma ahan nimankii laga yaabi jiray galmid ma ahan maxay ku dhacay 4 sano yaan kaartid ku noqon Ibrahimovic ma xasuusta ويمويه markay isla joogeen Manchester Europe League ki baa ugu dambeeyay markan koob marada cishta waxa lagu leeyahay suuqa 8 milyan 800 milyan ka badan suuqa ay ku bixiyeen way marada cishta ciidahay Suarez Luzato ya ana markaa Suarez ka hadlay Real Madrid baan soo xasuusanaya Suarez waxa lagu leeyahay xal wuxuu jabiyay record Cristiano Ronaldo u dhigay horiye ka dhigay La Liga kaas oo ahaa Ronaldo markuu liin ku cusbaa in markuu Madrid ku soo biirayay oo Manchester ka imaanay Cristiano Ronaldo waxay ku qaadatay 2009 markuu Madrid imaanay ku cusbaa Madrid toban kulan bis bay ku qaadatay inuu durba 15 gool ka dhalay La Liga laakiin Suarez weydii isagu waa nin kale koox ku cusub waxa uu noqday ciyaariyaankii ugu fiicnaa qarnigan soo maray Kamal Dariga hatta Ronaldo ayuu ka fiican yahay iman baa barad wad cishtayo Suarez fasaxay doohan taban maqli jiray waa doohan tahay Barcelona waxa lagu leeyahay Suarez 16 gool ayuu sii maray La Liga xilli ciyaareedka waxay ku qaadatay kaliya 17 ciyaarood bay ku qaadatay inuu kaga dhalay La Liga waa qarniga ninka ugu fiicnaa ee Spain soo maray horyaalkeeda oo koox ku cusub durba 17 ay ku qaadatay kaliya 16 ku dhaliya Suarez 17 gool ayuu ku dhaliyay 17 gool markuu ciyaaray Suarez wuxuu ku dhaliyay 16 gool Ronaldo 17 gool markuu La Liga ciyaaray wuxuu ku dhaliyay 15 gool hatta Ronaldo ayaa laga fiican yahay marka runtii Messi waxa la 2 gool baan ka saray soo gaar baa leeyahay Atletico Madrid wuxuu cadaaday La Liga oo cadaaday runtii Luzato waa laga yaabay yahay marka ninkii ugu fiicnaa ee La Liga soo maray Ronaldo ayuu ahaa oo gool asugu dhalay Suarez waa ka daray niman baa yiri cadow ka waa ninka kan waa cayday wax ma taray yiraahdeen waa duqoobay waa ka duqi baa la xillayay odagii dhamu ka gool badan yahay Messi ka gool badan yahay 16 gool buu maraya halka ninka Messi soo marayo 13 gool uu soo maray runtii ciidamadiisana haysan kara ninka kan waliba ninkan xagaga la soo dhaafay Barca xilli ciyaareedka wuxuu dhalay 16 gool halka kuwan uu dhalay hadda durba bilowgii horyaalka la marayay dhexdhexaadkii 16 gool buu durba haystaa marka runtii kumano habeen walba waan sheegi doon intuu Suarez uu cadreenayo anigu waxa igu soo dhacaya kaliya reer Madrid baa igu soo dhacaya qolihii Madrid cistay baa igu soo dhacaya Suarezna dayacay igu soo dhacayo taas waa taa mid kale Liverpool malaha wuxuu xiiseeyay leeyahay taageerayaasheeda waxa jira kooxo taageerayaasha ku ciyaara jira hal koox uu qaar inuu taageerayaashu inta badan ba ayuu wax ku ahayn laakiin Liverpool waxay u baahan taageerayaasheeda qeylinayo habeenadood waa iskood maqlaysa adiga maasta habeenadood marka ciyaarta Liverpool iyo Man City ciyaariyeen Cambiyo markay ciyaartu ay ahayd eber ay ahayd banaanka bulra laga shiday macnaa Man City gadaha waa laga dhixinay macnaa jamaahirtooda hadii xatay garoonka joogin waxay macnaa dadka Liverpool waxay ku ciyaartaa taageero ku ciyaartaa kuwa baa dhiirigeliya Liverpool qaloob habeenkan kugu daarayaan wayba ka dhixinayaan marka aan filasii joog ka badaranba habeenadood marka taageerash maadaama inuu joogin Cambiyo hadaba Man City banaanka garoonka banaankiisa bulra soo ridayn waxa leeyahay maxaa markaas waa fahmay ciyaartan uu tuurin aan hayo waabis wayaan baan waxa Liverpool Man City waa la waabinaya waa laga naxinayo jamaahirti ayaa banaanka bulur ka daaraysa City waa waabin waxa waabis wax looga qaban karmaan wahayn oo dabka banaanka laga gabi karo iyo bulur banaanka laga gabi karmaan wahayn marka laakiin Liverpool inay jamaahirtu waxay ku dareemaysaa waxa lagu leeyahay Man City tan markii COVID-19 ka taageerayaashu ka xarimeeyay garoomada soo galaan
city ayaa noqotay kooxda dhibcaha ugu badan ka heshay Premier League taas oo ka badan Liverpool. City waxay Premier League ka heshay tan markii taageerayaasha garoomada laga joojiyay 74 dhibcood waxaana ay Man City goal difference ku haystaan goolasha laga dhaliyay goolasha dhaliyay marka la kala jaro 56 goal difference bay haystaan marka sidoo laba kulan Premier League ciyaareen oo taageero la'aan 74 dhibcood bay haystaan halka Liverpool iyana ay haystaan 57 dhibcood marka ay la ciyaareen 32 ciyaarood Premier League 22 goal difference ay haystaan marka waxa uu leeyahay City ayaa ku xariifsan taageero la'aanta laakiin jamaahirta Liverpool waxay leeyihiin bas taageero ma ilahayd City waxay leeyihiin bas taageero ma lahayn bay leeyihiin oo niman madax dirsi doontay baa meelaha joog mugtaa City waxa isugu sibaal baa leeyahay mid Arsenal ka soo tago madax dirsi soo doontay oo xabad ka yaa meelahan kala ka soo baxay haba ugu badnaadan Arsenal adiga oo qaarkood baa macnaha Samir Nasri iska soo raacay iyo Adebayor iyo soo raacay iyo adigu Kalichi iyo Bakary Sania iyo akhyaar ba meelaha dadka soo raacay mugtaa adiga marka waxay leeyihiin bas City taageero ma lahayn oo sawaxan leeman lahayn laakiin Liverpool malaha waa laga yaabaa taageerayaasha u xiisay maxay yeelay waxbay ku ahaayeen marka waxa la ogaaday Liverpool taageerayaasha u xiisay halka City iyagu ay ku fiicnaayeen inta taageeraantu ay tahay dhibco badan ay ku heleen Bayern Munich Chelsea Liverpool ayaa hadda ugu cadcad balay saxiixa ciyaartooyga David Obamecano Manchester way ka baxday tartankii lagu jiray ciyaartooyga warkaas caaw waxa soo warinaya wargeyska Sports Bill ee German ka soo baxa sababtoo Manchester waxay doonatay Ibrahim Manchester inta ku waaysa Ahmed iyo Ibrahim iyo Manchester u maanaysa bariyaha kan wax badan ma taqaan mashi shaqo gaaleyn karno magacyadii baa caalamka qabsanaya micnuhu magacyada Soomaaliyeed badan la baxdaan ka hadlaya Ibrahim Kanute raban oo arbigu ciyaari doonaya ma doonaya Obamecano ma doonayaan marka Manchester sanadaha soo aadan waanu nagu Ibrahimeynayaan oo nagu maxal raadayay Ahmedeynayaan waa ka ciyaaraha sidoo kale waxa kamid ah 7 habeen baa ka hasan Champions League in la ciyaaro oo waaw ya 7 habeen kadib Champions League waa la ciyaaraya maadaama 7 ay ka dhiman tahay kulku ugu khatarta badan Champions League soo qaadano iyo lambarada ugu khatarta badan Champions League sanadkan soo qaadano Griezmann iyo Mbappe waa lambar 7 ciyaaraha sanadkan Champions League iska hor imaanaya 7 maalmood baan ka dhiman Champions League iyaga aan u qaadanina caawa maadaama 7 ka dhiman tahay lambar 7 yaasha tan baan u qaadanina maadaama uu yahay kulkooda kan aan sugayno talaadadan caawa habeenkeeda kale kadib jo kanoo lagu hormaraya ya habeenkaas warwaaba jiray wiiska xayiraya qayow marka toddoba baa Champions ka dhiman mid kale 9 kooxood ayaa sanadkan la sheegay inay ku tartamayaan ciyaaraha Champions booska Champions looga qayb galayo waxaanu haynaa 4 boos oo looga qayb galayo ciyaaraha Champions 4 bis baa loo galay kooxaha Ingiriiska laakiin ogow 9 kooxood ayaa sanadkan ku tartamaya booska kaaso waa sanadkii ugu darna ever taariikhda kubadda cagta Ingiriiska in booskaas la soo dagaalo wayaan Liverpool si bariyaan oo hooseynaysa Chelsea Tuchel baa soo kiciyay West Ham waa soo kacday Everton waa soo kacday hatta kullu bay gacanta ku haystaa waxa uu leeyahay sanadka kan booska 4 Premier League waa lagu tartamayo waa lagu waalan yahay sanadkan booska 4 hadad hesho Real baa sida ku qaadi walaal booska sanadka ma bal heli kare bal nasiib waxan baan leeyahay qoliyo sanadka hatta Tottenham Kimba u soo laabtay hadda Qatar wayaan iyaga marka sanadka kan waxa uu leeyahay Man City marka laga saaro iyagu ya marka kooxaha kala fiiman su'aal la kabtid waa gash waaweynta sanadkan leeyahay hadda intaas dhibcood horeysay iyagu booska Champions League markasta waxa xaqbal leeyahay laakiin kooxaha booska Champions League isku hay waxa uu leeyahay ka bilow booska labaad ilaa iyo booska Champions League waa Champions League raban Champions League waa haya Manchester United hadda labaad ku jirta Leicester saddexaad ku jirta Liverpool afraad ku jirta Chelsea shanaad ku jirta West Ham lixaad ku jirta Everton toddobaad ku jirta sideedaad Spurs ku jirta Aston Villa sagaalaad Leeds 10 Arsenal 11 sanadkan marka waxa uu leeyahay 4 marka City laga bixiyo hataa 3 boos baa jirta iyaha waxaan ku tartamay 9 kooxood ama raas oo sanadka kan wala yaaban yahay mid kale aw Leeds hadda oo sanadkan tartamaysa hataa Qatar wayaan Leeds waxa uu leeyahay xilli ciyaareedkan waxay badisay ciyaaro ka badan inta ay badisay Arsenal Premier League waxayna dhalisay gool ka badan inta ay dhalisay xilli ciyaareedkan kooxda Tottenham Premier League ka dhalisay ilmaha yaryarka ilma ma aan Qatar wayaan waxa wata ninkii Qatarta badnaayay Marcelo Bielsa wato runtiyo inaan caadi ahaynba caawiyo ciyaaraha waxa kamid ah Liverpool sanadkii la soo dhaafay waxay qayb ka ahaan jirtay ama qayb ka ahayd ragii doon jiray Bruno Fernandes runtii Bruno Fernandes anu weyn ah waa dareemay waxaan ka xisaabi jiray waxaan ri nin la Lisbon la ciyaarahan gool Fernandes waxaan ila diidada ugu kooxaha weynka loo keeno ninka waa shaqaysana dhigi jiray waana sidee baa dhacday ninkan warni ilmu ku soo shaqaystay ninkaas ahaa ya kooxda dad u ka maxay tahay uu ku baashaalayay waa sababta Bruno ugu wada yaabanahay hadda Liverpool waxay qayb ka ahayd kooxii ku sigtay inay qaataan Fernandes laakiin looga guuleysay hadda iska ilo Bruno Fernandes waxaad helaysaan ninkii Bruno ilowsiya kooxda Lisbon baad helaysaan waa kii ninka ka waa ciyaartoy lagu magacaabo Pedro Gonçalves bishii January Liverpool isku dayay baa ciyaartoygan khadka dhexe inay qaadato laakiin ma aysan u suurtagelin balse waxa uu leeyahay Liverpool ciyaaryahan khad dhexe bay doonayaan suuqa soo aadan oo Liverpool waa la adkeynaya hatta Chelsea wuxuu yiri waa saddex ciyaaryahan u baahan ugu yaraan hatta kiin doonta waa lagu la taliya hatta cidii xaqiiqadan waa la soo dhisaya cidda Liverpool marka khadka dhexe inuu ka taga laga yaabo Wijnaldum marka Liverpool waxay ku dhawaatay baa leeyahay January la soo dhaafay ciyaartoyga Pedro Gonçalves oo ah ninka Bruno ka soo tagay kooxda Lisbon booskiisa lagu bedelay buu ahaa haddaba Gonçalves iweydi in soo dhaliyay sida Bruno ku madax iska fudud yahay ninkan Bruno maxaan ku kaga yaabay taqana ku jecelahay maskax fudud oo madaxiisa waa fudud yahay
waxaa jira ciyaaryahan madaxooda fudiya wash iska dhalanaya goolashaa jira yaa halkuu kabad adeeg iyo qabaan hore aan kala qabsanin kooxdu ninkan 22 jirka markuu Lisbon ku biiray oo Bruno markuu baxay booskiisa lagu bedelay Lisbon ku bedelatay 22 jirkan Portugal ka u dhashay reer Portugal balaa soo baxayse 14 gool ayuu xil ciyaareedkan dhaliyay 15 gool Real ku ciyaaray 15 la ciyaariya 14 gool la dhaliyay waa Bruno kale ee still Liverpool way ku Brunayn doonaayo Bruno ka hadlay waa kano Bruno nin lamid bay soo wataan cidiyo Lisbon waa ila usir Bruno ninka kan Bruno baa baxay waxay haystaan nin kale Portugal ah oo la yiraahdo Pedro Gonçalves uma baahnid Bruno marka Liverpool nin kale muhiim bay soo wadataan marka ku bedela karayaan Eden Hazard waxa uu sheegay in markii uu yara uu ahaa taageero kooxda Arsenal ah waxaan ku soo barbaaray uu leeyahay taageerada kooxda Arsenal maadaama asagu uu jeclaa jiray ciyaartooyga Faransiiska Arsenal maxay ahayd hooyigii Faransiiska bay heedo waxaan Hazard oo hadda micnuu la dhibaatoonay hilib iyo caluukanimo iyo cayl waxuu sheegay inuu Bruno ciyaari doono ilaa 3 sano jirka gaarayo wasawtan ku leeyahay Ibrahimovic iyo Cristiano Ronaldo lama gaari doono dadkaas waxay rabaan Bruno ciyaar ilaa 40 jir ka gaarin ciyaaran bay doonayaan halka Ibrahim uu sanadkan ba noqonaya 40 jir uu noqonay wali la ciyaarayo laakiin dadka qaar ma gaari karaanba 40 ma gaari karaanba hada sidoo uu leeyahay 3 sano jir ilaa ka gaarayo Bruno waa wadaya uu leeyahay ninka hadda dhaawac uu wareerinayo hadda ma arkaa walaalihii waxay ahaayeen Faransiisku aad baa loo jeclaa 98 iyo aad baa loo jeclaa walaalihii weeyaan kan geeska jira waa in Hazard labadiisa walaalo weeyaan kuwa kano Faransiiso qabo bariga Faransi bay aad u jeclaayeen ciyaartooyda aad u jeclaan waliba Hazard wuxuu ka soo bilaabay ciyaaraha Faransiisku ka soo bilaabayo 2007 wuxuu u soo ciyaarayay kooxda kubadda cagta Lille kadib Chelsea uu ka soo aaday laakiin wuxuu sheegayaa ninka la yiraahdo wuxuu sheegay Hazard markuu yaraa inuu daawan jiray xulka qaranka Faransiiska maadaama halkaas yani ma taqaana waxaan aad u eegi jiray buu leeyahay daawashada ciyaartooyga Zidane iyo Thierry Henry wuxuu sheegay inay wuxuu way u adag tahay anigoo nin Chelsea ah xiriirka la dhaxay Chelsea oo aad u adag darteed haddana ma qari karo leeyahay markaan anigu yara waxaan jeclaan jiray kooxda Arsenal sababtoo ah Arsenal waxa uu ciyaarayay sida ciyaartooyga Robert Pires iyo Steven Welton iyo Patrick Vieira iyo ciyaartooy Faransiis baan ku soo kala leeyahay daawashadooda inaan ku raaxaysto Chelsea waxa la qowlaan ku baan ku soo barbaaray daawashadooda jeclaa uu leeyahay marka biriga uu yara Arsenal uu qabi jiray Arsenal la jeclaa markaas biriga hore qatar bay ahay jireen barkii waqti Arsenal aadwa yaa tuura imaado waxa la iska bax يا ترواد والله وينها أسمع قروي مادي سندرها يا يحرر من فيس كبح بل ويا لا كايا إبراهيم جاي مادي حرر سعود توبر إبراهيم جو إبراهيم دبلو عيران ميت توبر إبراهيم بدي تجاوي يورو معنا ورسول اسمه عيران إلا مركز معه وينك بروح يستا هنري بلاي ويستا يقول تود بلاي ويستا لاعبين بويستا ما أنا ملا هذا الوريجا يقول لك الوريجا معه مركز نيكاس وعلي ما تخانق إبراهيم جو على هذا أرسنال أرسنال شغل يورو معنا إبراهيم جا ما يشتري وحرر توبر أسمع قروي معنا إبراهيم لما تجاوي إبراهيم الصبح إبراهيم وصاحب إبراهيم لما تجاوي والله الكوات بين ذاك ميسي وحلا الله دورتي طبعا كيسنا قد بينك وبين وقفنا بالله دورتيو وأنا أبل مرينتا ما وح برنامج كان كله واقعي حركة كوبادا عكتا عالمي جاه يو ريكورسكا أما ستاتيكسكا لو يقانو IFFHS waxay leeyihiin decade-kii ugu dambeeyay ama 10 sano ugu dambeeyay ugu khatarta badnaa waa Messi bay leeyihiin inkastoo Cristiano Ronaldo uu qaaday 4 Champions League intuu dhaxay 2020 waxa la leeyahay Messi baa kii ugu fiicnaa 10 sano ugu dambeeyay Bruniga marka Ronaldo waa la garaacayo Ibrahimovic wuxuu noqday 3 ciyaaryahan iminka ciyaara oo wali ku Faransiiska dhaaf ragga hadda Bruniga ciyaara 500 gool oo koox haysta waxa uu leeyahay waa Ibrahimovic 500 haysta Messi haysta 600 gool iyo Ronaldo haysta 662 gool wuxuu leeyahay waa 3 ciyaaryahan iminka wali Bruniga ciyaara ee haysta 500 iyo ka badan oo gool ah wiilkii darba uu dhalayna cisaaq daragbana waxa uu ku biiri baa lagu leeyahay koox ka dhisan Serie A Talyaaniga oo lagu magacaabo Gori Cartese ayuu ku biiri baa lagu leeyahay wiilka wuxuu dhashay sanadii 2000 buu dhashay cisaaq darba baa la yiraahdaa odagii weynaa darba baa laacibkan uu qaaliba dhalay runtii haddaba kooxda uu ku biiray aabihii wuxuu 8 sano ku soo qaatay kooxda Chelsea 104 gool buu u soo dhaliyay 308 ku kulmo ciyaar kooxda hatta ay Furiyanka 14 koob buu Chelsea la soo qaaday waliba Champions League sida mid isugu qaadayo hatta darba mar buu daba tagay dhanka iyo Turkiga oo hatta kooxda Galatasaray Furiyan inuu la qaaday marka wiilkii darba cisaaq darba ayaa hadda Bruniga bilaabay isna yaa 2000 kuna la haddana waa ka kooxdu tireen uu ku biiray runtii waa wiil ma taqaana weeriyahan isaga sida abiyo kale weeriyahan yahayo marka wuxuu leeyahay 20 jirkan darba dhaliyo halka ay tireen ugu aaday oo ma cisaaq darba haddana yaa ويلكي درق با تشسو عياري جري معناها هذا معساق درق بيننا معناه عساق با عياري درق با عساق درق ما لين حي ارعاقي يا مدد الاسكاك دي يعني بيريغاس كفلنا جاي عساق درق با مسعود عساق درق بيني يا